9 September sanadka 2025 magaalada Dawxa ee caasimadda Qatar waxaa gilgilay duqeymo militari oo Israa'iil fulisay taas oo si toos ah loogu beegsaday hogaamiyayaasha ururka Xamaas. Dhacdadan oo lama filaanka ah waxay noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu cuslaa ee siyaasadeed oo gobolka Bariga Dhexe ka dhaca, iyadoo abuurtay su'aalooyin badan oo ku saabsan madax-bannaanida dalalka dhexdhexaadka ka ah, heshiisiinta wadamada iskhilaafsan iyo ururooyinka isdagaalsan, iyo mustaqbalka dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa duqeyntii laga geystay dalka Qatar iyo sidoo kaleeto sababihii ay ka lahayd Israa'iil iyo jawaabta caalamka ay ka bixiyeen kadib weerarkaasi iyo saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelatay. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Sidee ayay u dhacday duqeynta? Israa'iil ayaa isticmaashay diyaaradaha loogu magac daray F-15 iyo F-35 kuwaas oo ay marsiisay wadamo ka baxsan wadamada agagaarkeeda ah. Markay isticmaalaysay hawada, waxay ka fogaatay inay u dhawaato wadamada la isku yiraahdo GCC oo inta badan ah dalalka Carabta. Goobta la beegsaday halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Xamaas iyo ergooyin wadahadallada ku jira dhexdhexaadiyaasha Qatar. Inkastoo ay bartilmaameedka ugu weyn uu ahaa hogaamiyayaasha Xamaas, weerarka waxaa ku dhintay 5 qof oo ay ku jiraan nin ka tirsan ciidanka dalka Qatar. Sababaha iyo ujeedada Israa'iil waxay sheegtay inay duqeynta ay ahayd tallaabo lagu daciifinayo awoodda hoggaanka Xamaas, gaar ahaan xubnaha wadahadallada ka qaybgalayo. Ujeedadu waxay ahayd in la fuliyo hanaanka gorgortanka oo ay Israa'iil u aragto inay halis gelinayso danaha amniga ee gudaha Israa'iil. Si kastaba ha ahaatee, warbixino badan ayaa muujinayo in hogaamiyayaasha la beegsanayay ay badbaadeen, taas oo weerarka ka dhigtay mid lagu guuldareystay ujeedadii laga lahaana la gaari waayey. Jawaabta caalamka. Haddii aynu fiirino jawaabta caalamka, dhacdooyinkani ayaa isla markiiba dhalisay cambaareyn baahsan. Qatar waxay ku tilmaamtay weerarkani argagixiso dowladeed iyo jebin madax-bannaanid qarneed. Wadamada la isku yiraahdo GCC iyo dowlado kaleeto oo ka tirsan Islaamka ayaa shir degdeg ah ku yeeshay Dawxa, iyagoo isku raacay inuu weerarkani yahay mid khatar ku ah amniga gobolka. Qaramada Midoobay iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in duqeyntu ka hor imaanayso sharciga caalamiga ah iyo mabaadi'da ilaalinta dadka rayidka ah. Ruushka iyo wadamo kaleeto ayaa ugu yeeray weerarkani xadgudub weyn oo ka dhan ah Qaramada Midoobay iyo sidoo kaleeto xeerarka caalamiga ah. Haddii aynu eegno saameynta siyaasadeed, duqeyntani waxay wiiqday kalsoonidii lagu qabay doorka Qatar ee dhexdhexaadinta wadahadallada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Dowladda Qatar ayaa ku dhawaaqday inaysan sii wadi doonin kaalinteeda gorgortanka ilaa Israa'iil ay si rasmi ah uga bixiso raaligelin. Tani waxay caqabad weyn ku noqotay dadaaladii lagu doonayay in lagu gaaro heshiis nabadeed iyo sii deynta maxaabiista. Sidoo kale, dhacdadani waxay muujinaysaa in xuduudaha dowladaha aanay mar dambe damaanad u ahayn amniga, iyadoo laga cabsi qabo in wadamo kaleeto oo martigeliyey hogaamiyayaasha Xamaas ama kooxaha kaleeto ay noqon karaan bartilmaameedyo mustaqbalka ah. Gunaanadkii muuqaalkeena, duqeyntii Israa'iil ee Qatar waxay noqotay dhacdo beddeshay jihada siyaasadeed Bariga Dhexe. Inkastoo hogaamiyayaashii Xamaas ay ka badbaadeen weerarka, haddana saameynta diblomaasiyadeed iyo midda siyaasadeed ayaa ahayd mid aad u weyn. Kalsoonidii dhexdhexaadnimada Qatar ayaa dhaawacantay. Xiriirkii Israa'iil iyo Carabta ayaa sii xumaaday, waxaana sii xoogaystay su'aal ku saabsan haddii dagaalka iyo faragelinta noocan ah ay horseedi karaan iska hor imad ballaaran oo gobolka dhan saameeya. Dhacdadani waxay tusaale cad u tahay sida dagaalka militariga uu si qoto dheer isu dhexgalo siyaasadda caalamiga ah iyo sidoo kaleeto rayidka, mar walba uu yahay kan ugu badan ee khasaaraha qaata. Haddaba muuqaalkeena maanta
intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa. fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo beer, haddaad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tagayaa saas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.